السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وإن سلامي عشركنا maanta waxaan uga hadlaynaa sida u samaysan lahayd PayPal account adigoo Soomaali jooga. Waana waxa ugu sahlan oo qof kasta uu samaysan karo teleefankaaga ama kombiyuutarkaaga adoo isticmaalaya samaysan kartaa. Marka PayPal account marka aad rabto inaad samaystid sida ugu sahlan waa inaad Google tagtaa oo PayPal account aad ku soo qortaa. Kadib waxaa kuu soo baxaya create PayPal account ku soo baxaysa ama sign up for free. isaga ayaad ku dhufanaysaa sign up for free markaad ku dhufato isla markiiba waa inuu kuu soo saaraa ama ku dulgeeyaa halkii aad ku samaysan lahayd akoonka waa inuu ku dulgeeyaa. Sign up for free markuu kuu soo saaro isla markiiba wuxuu ku weydiinayaa my personal account miyaa rabtaa ama waxaa rabtaa business account. anaga maanta business account marka ma rabno, waxaan rabnaa inaan samaysano waa PayPal account. PayPal noo sameey ayaan leenahay. waxaan rabnaa personal ayaan dalbanaynaa, personal noo sameey. isla markii halkaan uu ku keenayaa wuxuu ku weydiinayaa wadanka aad rabto ama aad joogtid inaad isku samaystid. haddii Soomaali uu ku dooranto waa okay, isku doornayna halkaan ayaad furaysaa falaarta halkaan ay ku qoran tahay fur. kadibna wadamada dhan waa halkaan ay kaaga soo baxayaan kulligood halkaan ay kaaga soo baxayaan si tartiib ah kor u wad wadanka aad joogtid. hadda waxaan ka hadlaynaa waa Soomaaliya adoo jooga, laakiin wadanka aad joogtid ayaad halkaan ka dooran kartaa mar walba wadanka aad joogtid ku xiran tahay. haddaad rabtana gacanta ayaad ugu qori kartaa Soomaaliya oo waxaad dhigi kartaa Soomaaliya isla markii uu ku soo saaraya. Okay, markuu ku soo saaro halkan aad ku dhufanaysaa get started halka ku dhuf. Okay, markaad halka ku dhufato isla markiiba waa inuu geeyaa xogta dhamaystirkeedii ama halkaad gelin lahayd telefoonka. halka markaad tagtid wuxuu ku weydiinayaa telefoonka, waxa ugu horreeya ku weydiisanaya telefoonka waaye. kadibna telefoon numberkaaga ayaad gelinaysaa. telefonkaaga markaad gelisid oo halka aad gelisid waxaad leedahay next tusaale ahaan 1 2 3 4 5 6 waxaad leedahay halkaas next markaad tiraadid wuxuu ku geynayaa halkaan. marka waxaad leedahay send code haddii lacag uu ku soo dhici waayo again. haddii marka uu ka qaldamo halka aad ku dhufanaysaa ama aad inaad bedeshid halkaan uu ku dhufo. si fudud ayuu ku geynayaa halkii aad ka bedelan lahayd numberka. marka numberka hadana iska bedelaysa dartid okay ka bacdina telefonkaaga message-ka caadi okay markaad numberka soo geliso isla markiiba message-ka wuxuu ku keenayaa halkaas uu ku geynayaa halka marka aad ku keeno oo akoonkaaga aad soo samaystid wuxuu ku weydiinayaa inaad ku xiratid link kaarkaaga inaad ku xiratid debit iyo master ka haystid ka bacdina aad confirm garaysid ayuu ku dhahayaa. marka qasab ma mar walba inaad ku xirtid hadaarta markaad lacag kala baxaysid baad ku xiran kartaa marka la baahan inaad ku xirtid sida lagu xiriirsana waa fiirinaa haddana ay ku tusinayaa balance-ka. laakiin mar walba halkaas uu kaaga soo boqonaya markaad lacag qof u dirtid iyo markuu qof kuu soo dirayo. markaas uu sameynayna akoonka aan email-ka aad soo gelisay ilaawin uu ku weydiiyay. markuu email ku weydiiyo email-kaas hadhoodii waa kan aad ku isticmaali doonto oo PayPal-kaaga mar walba oo lacag lagu soo shubayo aad gelin doonto. marka qof lacag aad u shubaysan aad isticmaali doonto marka email-ka aad gelin doonto oo adiga ku samaysan marka hore Gmail ku soo samaysan waa inuu ahaada oo markaas ku dul gelin Gmail samayso active ku ah geli marka uu ku weydiiyo Gmail-ka uu ku weydiiyo balance-kaaga halka uu kugu soo qormay halkan weeyaan. kadib halkan fiiri marka rabto inaad fiiriso dhaqdhaqaaqa summary-gaaga halkaas aad tagaysaa. haddaad rabto inaad samaysto payment ama hadda aad lacag rabto inaad halkaas aad tagaysaa. activity guud oo samayn doonto monthly-ga dhammaan waxyaabaha kala u baahan halkaan ka arkaysaa. marka rabto inaad ka baxdid oo telefoonka ka baxdid halkaas sign out ayaad si fudud u dhahaysaa. marka ma dhibadno halkaas fiiri payment ay ku qoran tahay. payment markaad tagtid wuxuu geynayaa halka ay ku tahay lacagta tirada kugu jirta. kadib marka rabto inaad lacag dirtid halkaan ayaad tagaysaa send ama aad rabtid inaad kala baxdid akoonkaaga lacag markaad inaad kala baxdid halkaas aad ku dhufanaysaa. balance-ga ayuu ku dulgeynayaa lacagtaadina halkaas ayaad ka dalbanaysaa tirada aad rabtid. haddaad rabto inaad kaar ku xirto isagana saas oo kale halkaas ay ku qoran tahay payment-ga ayaad tagaysaa ama waxaad tagi kartaa halkii aan marka hore tagnay oo activity-ga aan ka sameynaynay. ka bacdina halkaan ay ku qoran tahay payment preference-ga ayaad ku dhufanaysaa. then wuxuu toos ku geynayaa halkaad ugu xiri lahayd kaarka. hoos tag halkaan tag ay ku xiran tahay link card ay ku qoran tahay tag halka ka bacdi ku dhufo linkiga kaarka ku dhufo
halkaa markaa ku dhufatid wuxuu toos ku geynayaa halkii aad uga soo xiri lahayd kaarkaad isticmaalaysid. halkan tag, halkan jeexan waxaad gelinaysaa kaarka dushiisa lambar ku qoran. halkan waxaad ka doonaysaa nooca kaarka, tusaalehan hadduu Visa card yahay ama Mastercard yahay, halkaas tag ka bacdina halkaa ku dhufo. tusaale ahaan waxaad darbataa Visa card yaad rabtaa inaad ku xirtid ama Mastercard, halkaas ayaad ku dhufanaysaa. ka bacdi halkan waxaad ku qoraysaa expiration date, halkaas tag, halkan ay ku qoranta bisha ku qor, halkaasna yeerka waay. tusaale kaarka waxa laga yaabaa inuu dhacayo bisha 5aad 2024. halkan markaad gelisid halkan imow security kaarka, halkan CVV ga numberka code security ka la yiraahdo halkaas fiiri numberka meesha qoran CSC ama CVV lambaradaas mid kamid ah ku soo gelinaa. sidoo kale haddii aad email isticmaalayso ama aad leedahay sidaan oo kale email kugu soo gelinaa. hadda halkan email kaaga muuqda oo kale ayuu haddii lacal uu yahay email lagu sameeyo oo ku samaysanaan lahaa uu yahay kale saas uu kaaga soo muuqanaya. waa haddii aad hore aad email u gelisay ama aad u isticmaashay oo kale. waayahay halkan marka aad gelisid CVV code-ka ka bacdina okay aad ku leedahay. lambarka halka aad gelinaysid waa midkan halka ku yaala oo halka ka tusinaya, isla midka halka ku yaala waaye. fiir lambarkan halkan imow, halkan imow, halka fiiri lambarka halka ku dul qoran oo dheer ayaa ah lambarka aad isticmaali kartid oo aad gelinaysid maxaa la yiraahdaa aad gelinaysid meesha hadda aan ku tusiyay wajiga hore ku yaala. ka bacdina CVV ga markuu ku weydiiyo, CVV laga yaabo inuu ku weydiiyo, haddii uu ku weydiiyo isagana waxaad isticmaali kartaa lambarka dhabarka ku yaala oo hadda aan ku sheegaya. isla isaga lambarkiisa markaad soo gudbisid dhabarkiisa aad ku arkaysaa oo aad ka heli kartaa, aad ku isticmaali kartaa. fiiri aan ku tuso sawir kale, halkaa fiiri lambarka halkan ku yaala ayaa ah CVV ga, halkan CW ma waa CVV wax halka ku yaala waa security code-ka, waa numberka sirta ku ah oo aan ciidan la wadaagayn mar walba. markaad ka soo gelisid ka bacdi uu kugu xiran yahay, markaad doonto inaad ka furtana remove baad leedahay, wax kale oo ma bahana. marka account PayPal account samayntiisa waa askaas, wax badan uma bahna, dib kalena kuma baxo, waqti badan kuma baxo. taasoo waa kugu filan tahay. waxaan rajeynayaa inaad intaas fahamteen. waxa aadan fahmin insha Allah tacaala waad ugu soo noqon doontaan, waan insha Allah tacaala idin sharxi doonaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.